xiddiga weerarka uga ciyaara xulka qaranka Faransa ee Kylian Mbappé ayaa seegi doona kulanka Netherlands ee tartanka Euro 2024 ee heerka guruubyada. Xiddiga reer Faransa ee Kylian Mbappé ayaa ku dhaawacmay kulankii uu xulkiisu ka badiyay xalay Austria kulan ka tirsan tartanka Euro 2024. Xiddiga ayuu dhaawac jab dhanka sanka ah ka soo gaaray kulanka iyada oo dhakhtarka la geeyay kadib ciyaartii Austria. Haatan waxaa la sheegayaa in uu Kylian Mbappé seegi doono kulanka xiga ee Netherlands oo la xiriira dhaawac soo gaaray laacibkani. Si kastaba ha ahaatee xiddigan ayaa kulamada dambe ee Euro 2024 xiran doona maaska wejiga ilaaliya si uusan laacibkan u soo gaarin dhaawac kale inta uu socdo tartanka. Wararka ayaa intaasi ku daraya in sida uu sanku u caafimaado ay go'aamin doonto in uu ciyaaro kulanka Poland ee ugu dambeeya wareegga guruubyada ee tartanka Euro 2024. Kylian Mbappé oo dhawaan shaaciyay inuu ku biiray Real Madrid oo uu jeclaa ilaa caruurnimadiisii ayaa waxa uu lafdhabar u yahay xulka qaranka Faransiiska oo kula guuleystay koobkii adduunyada 2018. Sidoo kale waxa uu finalka la gaaray xulkiisa koobkii adduunka 2022 ee lagu qabtay wadanka Qatar ee dhaca qaaradda Aasiya. Xiriirka kubadda cagta Faransa ayaa go'aansaday sida loo maareeyo sanka jabay ee laacibkooda Kylian Mbappé. War qoraal ah oo ka soo baxay ayaa lagu yiri Kylian Mbappé waxa uu ku laabtay xirada xulka qaranka Faransa. Mbappé waxa uu sanka ka jabay intii lagu guda jiray qaybtii labaad ee ciyaartii xalay. Mbappé waxa uu heli doonaa daaweyn maalmaha soo socda laakiin ma mari doono qaliin mustaqbalka dhow. Maaskaro ayaa loo sameyn doonaa si lambarka 10aad ee xulka qaranka Faransiiska uu ugu diyaar garoobo ku soo laabashadiisa tartanka kadib muddo loo go'ay daaweynta ayaa lagu yiri warka qoraalka ah ee ka soo baxay xiriirka kubadda cagta Faransiiska. Kulanka ugu dambeeya ee gruupka D xulka qaranka Faransiiska ayaa la ciyaari doona Poland waxaana la qorsheeyay in la ciyaaro 25 Juun iyadoo Mbappé uu kaliya ku soo laaban karo tartanka haddii Faransa ay u baahdaan natiijo.